sharikadaha forexiska ee Soomaaliya dhawaanahan ka howlgelayay ee xirmay ayaa waxaa dhaqaale fara badan ku waayay kumanaan qof kuwaasoo weli ka soo kaban la dhibaatadii soo gaartay. Dhaqaalayahanada ayaa ku talinaya in ay dadku ka feejignaadaan ganacsiga dalka ku soo kordhaya ee aan salka adag ku taagnayn. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdilcasiis Barrow. Si fudud ayay Soomaalida ugu sameeyeen maalgashi lixaad leh shirkadahan burburay. dhaqaale gaaraya malaayiin dollar ayaa ku khasaaray, dadkuna ma aaminsanayn in si sahlan ay ku waayi doonaan lacagahoodii. haddase uma muuqato rajo mar kale ay dib ugu heli karaan. forex waxay ugu qasbay inaa lacag gashto oo qarash gashto nin dhalinyaro ah oo magaalada Muqdisho ku nool inta badan meelo ka soo shaqeeyay waxaan islaamay waa meesha ku nasan doonto oo haddii lacagtaada dad badan igu horeeyay waxay ugu dhaheen lacagtaada dhigo hada shaqeyn bishaada waxa ku soo dhacay aniga waxa isdhahay intaas sano soo shaqeynaysay meesha ku nasaleed hadda joogta waxa dhigaadna ay kala mid noqday gurigaada jiifa waxaana qaado. marka laga yimaado bulshada kuwaysan lacagaha xoogan ee boqolaalka kun ah, waxaa jira kuwa iska soo aruuriyay boqolaal dollar si macaashka billaha ah ee loo sheegay ay ugu dabaraan howlo badan oo ay waxbarashadu ka mid ahayd. aniga ardayda aha marka forex maal gashanaya ilaa hadda waan hay laakiin hadda jaamacadda waa sii dhamaanaysa. marka waxaan rabay in aniga asabdabaro oo hadda maadaama meelo kala duwan aan ka shaqayn jiray shaqooyinka ka nasto mahmaha loo bixiyaa jirta xataa forex oo hadda iga maqan oo ah adoon shaqaysan jiq oo kale. marka anna waxaa isdhahay dadka maadaama ay maal gashteen oo tartiibtooda ay xoolihii u dhuuqayaan deedna dhinaca ka dhug. dhaqaalayahanada Soomaaliyeed ayaa qaba in saamayntii ka dhalatay dhaqaalihii ku lumay shirkadaha burburay ee forexiska si guud looga dareemayo ganacsiga Soomaaliya. runtii forexiskii lacag malaayiin dollar ah ayaa Soomaalida uga luntay inkastoo tirakoob sax ah una jirin oo waddankeena waxaa ku yar tirakoobka guud ahaan iyo statisticska ayaan aad u shaqaynin. balse waxaan aaminsanahay in lacag 20 milyan ku dhow ay ku luntay saamayn dhaqaale xumo oo badan ayayna keentay oo ugu horeysa number 1 bangiyadii ayaa waxaa ku dhacay liquidity-goodii baa yaraaday ama cashkii ay hayeen maxaa yeelay dadkoo dhan waxay ku sameeyeen withdraw ay bangiyadii akoonnadoodii soo faaruqiyeen waxay geliyeen forexiskii ka bacdi waxaa dhacday bangiyadii inay awoodi waayeen inay deemihii iyo muraabaxadii iyo wixii ay dadka siin jireen credit-ka ahaa inay siin waayaan. shirkadaha forexiska oo mar rajo geliya bulsho badan oo Soomaaliyeed ayaa haddana xaalkoodii u bedelay dhado roob noqon weyday.